kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal halkani waa Garaad TV waxaad ku soo durugtaan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aad ku daawan doontaan wararkeenana waxa ugu waaweyn Qasim Salaad Xasan madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo shaaciyay shan waxyaabood oo dawladda madaxweyne Farmajo kaga fiican tahay dawladihii ka horeeyay ee dalka soo maray xilliyadii burburka wasiirka maaliyadda ee Soomaaliland Dr. Saad Ali Shire oo sheegay in Soomaaliland aysan ka goosanaynin wadanka Soomaaliya dawladda federaalka ee Soomaaliya oo hub iyo saanad military ka dejisay dekada hubyo ee gobolka Mudug maamulka Puntland oo faahfaahin ka bixiyay sababta loo xiray xafiisyo ay lahaayeen wasiirka ka tirsan dawladda Soomaaliya oo ku yaalay deegaanada Puntland iyo guddiga kumeel gaarka ah ee diyaarinta sharciga doorashooyinka oo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka Garaad TV oo diyaar garooba saaxiibayaal iyagoo faahfaahsan isku soo noqod habboon mar kale daawadayaal halkani waa Garaad TV xasuusnow haddii aad joogtid waqtigii salaada soo guda waajibka alle ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan madaxweynihii hore ee dawladii kumeel gaarka ahayd ee Soomaaliya Qasim Salaad Xasan ayaa wareysi uu bixiyay isagoo ku sugan magaalada Qaahira ee xarunta wadanka Masar waxa uu kaga hadlay xaaladda guud ee Soomaaliya qaasatan waxqabadka dawladda haatan ka jirta Soomaaliya ee horkacaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmajo Qasim Salaad Xasan ayaa sheegay in Soomaaliya ay soo martay marxalado iyo dawlado kala duwan balse haatan ay cagta saartay dhabihii dib u soo kabashada iyo soo celinta nidaamkii dawliga ahaa taasoo uu sheegay inay ku hawlan tahay dawladda horkacaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmajo sida uu ka dhawaajiyay madaxweynihii hore ee dawladii kumeel gaarka ahayd ee Soomaaliya Qasim Salaad Xasan waxaana madaxweynihii hore ee Soomaaliya uu shaaca ka qaaday shan waxyaabood oo dawladda imika dalka ka jirta ay kaga fiican tahay dawladihii ka horeeyay ee dalka soo maray waqtigii burburka waxaana uu ku sheegay shantaasi qodob ee lagu ammaani karo madaxweyne Farmajo in dawladda haatan jirta ay u dhagan nugushahay baahida shacabka kana jawaabto inta badan cabashada ay dadweynuhu u soo gudbinayaan haddii ay ku soo gudbiyaan warbaahinta iyo baraha bulshada arrinkaas oo uu ku ammaanay madaxweyne Farmajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxa kale oo Qasim Salaad Xasan sheegay in dawladani ay ahmiyad gaar ah siisay dhalinyarada oo ay xilal muhiim ah u magacawday sida taliyaasha ciidamada wasaaradaha iyo goobaha kale ee muhiimka ah si ay uga baaqsadaan dhalinyaradu tahriibka iyo in ay ku biiraan kooxaha xagjirka ah ee ka dagaalamaya gudaha Soomaaliya soo celinta bilicda dalka ayuu ku ammaanay sidoo kale Qasim Salaad Xasan dawladda haatan talada haysa khaasatan dhismaha goobaha danta guud sida goobaha isbitaalada goobaha waxbarashada jidadka dekadaha iyo taalooyinka halgamayaashii dalka soo maray oo ay dib u soo cusboonaysiisay dawladda madaxweyne Farmajo bixinta mushaarka ciidamada qalabka sida iyo sidoo kale bixinta mushaarka shaqaalaha rayidka ah ee dawladda Soomaaliya ayaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Qasim Salaad Xasan waxa uu ku tilmaamay talaabo kale oo lagu ammaani karo dawladda haatan ka jirta Soomaaliya waxa kale oo uu sheegay in arrin aan horay loo arag ay tahay kala dambeynta iyo wada shaqeynta madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ku wada shaqeeya khilaaf la'aan kala dambeyn iyo istixgelin waxaana uu sheegay Qasim Salaad Xasan in madaxweyne Farmajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre aysan wali isqaban intii ay talada dalka hayeen taasina ay ka duwan tahay madaxdii ka horeysay oo mar walba ay isku dhici jireen madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaareyaasha wada shaqeynta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayuu ku sheegay in ay horseeday in dalku uu horumar ku socdo maadaama uusan jirin khilaaf u dhaxeeya madaxda sare ee dalka madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa ugu dambeyn ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed iyo hogaamiyaasha xisbiyada mucaaridka ah in ay fursad siiyaan madaxda dawladda lana shaqeeyaan si loo soo celiyo midnimadii iyo wadajirkii shacabka Soomaaliyeed wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Somaliland Dr. Saad Ali Shire ayaa ka hadlay nidaamka gooni isku taaga ee Somaliland ay ku doonayso inay kaga goodo Soomaaliya inteeda kale wasiir Saad Ali Shire oo waramay website-ka Somaliland Now ayaa sheegay in Somaliland ay ka noqotay midnimadeedii Soomaaliya laakiin aanay ahayn gooni u goosad sida dadka qaar ay u maleynayaan
waxaana hadalkiisa uu ku yiri wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Somaliland dadka qaar ayaa yiraahda haddii Somaliland la aqoonsado waxay dhiirigelinaysaa gobolada kale ee dalka Soomaaliya inay iyaguna gooni isku taagi doonaan laakiin anagu cidna kama goosanayno waxaynu nahay dal la midoobay dal kale oo ka noqday midnimadii waa taas xaqiiqda jirta ayuu yiri wasiirka maaliyadda ee Somaliland waxa uu intaasi sii raaciyay wasiir Saad Cali Shire ahmiyadda ay Soomaaliya u leedahay aqoonsiga Somaliland haddii Somaliland la aqoonsado waxaan aaminsanahay inaanu dhamayn karno dhibaatada Soomaaliya waayo dadka Soomaaliya waxaanu u naqaanaa si ka fiican cid kasta ayuu yiri wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Somaliland Dr. Saad Cali Shire oo intaasi sii raaciyay in Somaliland ay horay u xalisay mushkiladeedii waayo aragnimada ay u leedahay in ay nabad ka dhigto Soomaaliya inteeda kale waa hadii buu yiri xukuumadda Muqdisho laga helay inay aqoonsanayso Somaliland waxa kale oo uu tilmaamay wasiirka maaliyadda ee Somaliland muhiimadda ay Somaliland u leedahay amniga gobolka iyo caalamka isagoo oo sheegay in amniga Ethiopia iyo Djibouti uu ku xiran yahay deganaanshaha Somaliland marka loo eego caalamka Berbera waxay ku taala goob aad istiraatiiji u ah hadii aynu halkaasi ku fasaxna burcadbadeeda ama kooxaha argagixisada waxa adkaan lahayd ayuu yiri in caalamka oo dhan uu isticmaalo halkaasi waxaana taasi ay ku timid buu yiri amniga ka jira deegaanada Somaliland wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Somaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa ugu baaqay dawladda Soomaaliya in ay aqoonsato Somaliland taasoo uu sheegay in dan weyn ay ugu jirto wadanka Soomaaliya maadaama Somaliland haddii la aqoonsado ay bilaabi lahayd dib u heshiisiin ay ka dhex qaban lahayd Soomaalida inteeda kale maadaama dadku ay yihiin kuwa isku isra ayuu yiri wasiirka maaliyadda ee Somaliland waxa uu dhanka kala sheegay in mas'uuliyiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya ay markasta ku dadaalayaan sidii ay u caburin lahaayeen ama ay cunaqabatayn u saari lahaayeen Somaliland taasoo ku sheegay mid aan ka turjumaynin darisnimada iyo walaaltinimada ka dhaxaysa Soomaaliya iyo Somaliland waa tahay daawadayaal wararka Garaa TV ayaad la socotaan haatan gobolka Mudug dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa in ay hub iyo saanad military ka dejisay dekedda magaalada Hobyo ee gobolka Mudug wararka ayaa sheegaya in hubkaas oo aad u fara badan ay dawladda Soomaaliya doomo dheereeya ku geysay dekedda magaaladaasi kuwaas oo hubkani ka soo qaaday dekedda magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya sidoo kale wararka ay halkaasi ka helayso warbaahintu ayaa waxay sheegayaan in hubkaas iyo saanadani military loogu talagalay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybtooda 12aad ee ka howlgala deegaanada Galmudug waxaana ilaa imika loogeyn sababta dawladda federaalka ee Soomaaliya ay waqtigani ugu soo beegtay in ay halkaasi geyso hubkani balse wararka ayaa sheegaya in loogu talagalay howlgalla ka dhana ururka Al-Shabaab oo ka bilaaban doona gobolada Mudug iyo Galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya waxaana la sheegay in hubkani ay dhowr doomood ka dajiyeen dekedda magaalada Hobyo ee gobolka Mudug isla markaana ay ka soo shiraacdeen magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya iyadoona gawaari looga daadgureynaya magaalo xebeedka gobolka Mudug ee Hobyo si loo gaarsiiyo goobaha ay ku sugan yihiin ciidanka 12aad ee xoogga dalka Soomaaliya dawladda Soomaaliya ayaa horay u sheegtay in ururka Al-Shabaab ay ka xoreyn doonto deegaanada ay kaga sugan yihiin qaybo kamida maamulka Galmudug siiba qaybo kamida gobolka Galgaduud oo ay ku taala caasimada Galmudug ee Dhuusamareeb waxaana dawladda Soomaaliya ay sheegtay inay qalabayn doonto ciidanka 12aad ee ku sugan gobolka Galgaduud si ay u xoreeyaan deegaanada ay gacanta ku hayaan ururka Al-Shabaab arrimahan ayaa waxay ku soo aadayaan iyadoo dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed ay ka socdaan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dawlad goboleedka Galmudug oo lagu qaban doono doorashada madaxtinimada ee maamulka Galmudug dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan magacowday guddiga farsamada ee maamulkaasi waxaana haatan socdo qorshihii ugu dambeeyay ee loogu diyaar garoobayo dhismaha Galmudug loo dhan yahay waxaana laga yaabaa in qaar kamida musharaxiinta Galmudug oo horay u saluugsanaa qaabka ay dawladda Soomaaliya wax u wado in ay haatan siyaabo kale u qaataan hubkani dawladda Soomaaliya ay ka dejisay dekedda Hobyo ee gobolka Mudug isla markaana lagu daadgureynayo gobolka Galgaduud maamulka Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyay sababta ka dambeysay in ay xiraan xafiisyo ay deegaanada Dhahar iyo Galdogob ay ka furteen wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya wasiirada xafiisyada lagu amray in laga xiro ee deegaanada Puntland ka furtay ayaa waxay kala yihiin wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada
xildhibaan Sadiiq Warfaa oo sanadkii 2017 ka furtay halkaasi iyo wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan oo maalin ka hor ka furtay magaalada Dhahar ee deegaanada Puntland. wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland Maxamed Musaddeq ayaa waxa uu sheegay in Puntland aysan joojin xafiisyo horumarineed in laga furto deegaanada maamulka Puntland hase yeeshee waxa uu sheegay in xafiisyada ay joojiyeen furitaankooda ay ahaayeen kuwa laga lahaa dana siyaasadeed isla markaana marnaba aysan aqbalaynin arrimahaas oo kale maamulka Puntland. wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Puntland ayaa war ay soo saartay waxa ay ku mamnuucday in xafiisyo laga furto deegaanada maamulkaasi ururada iyo shakhsiyaadka ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya. dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland ayaa waxa ka dhaxeeya khilaaf siyaasadeed kaasoo muddo dheer soo jiitamay waxaana ay ku kala aragti duwan yihiin waxyaabo ay ka mid yihiin siyaasadda maamulka Jubbaland. waxaana dowladda Soomaaliya ay dhowr jeer isku dayday in ay xalliso khilaafka kala dhaxeeya maamulka Puntland iyadoo dhawaan wasiir u soo dirtay magaalada Boosaaso halkaas oo ay kula kulmeen madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni laakiin uu ka biyadiiday dalab ay kaga wadeen mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya isla markaana lagu doonayay inuu kaga baaqdo xafladii caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe. mana jiro wax war oo ilaa haatan ka soo baxay wasiiradani ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ee laga joojiyay xarumo ay ka furan lahaayeen deegaanada maamulka Puntland iyagoo ku sheegay xarumahaasi in ay ugu adeegayaan danta guud maadaama ay ka fureen deegaanadii laga soo doortay oo ay tahay in ay bulshadeeda wax u qabtaan. laakiin wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland ayaa sheegtay inaysan marnaba ogolaan doonin in xafiisyo ay maalgelinayso dowladda dhexe ee Soomaaliya laga furo deegaanada Puntland maadaama uu jiro khilaaf ka dhaxeeya labada dhinac. magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug waxaa gaaray wafdi ka socda xubnaha guddiga ku-meel gaarka ah ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka ee baarlamaanka Soomaaliya. wafdigan oo ka ambabaxay magaalada Muqdisho ayaa marka hore waxa ay tageen magaalada Guraceel ee gobolka Galgaduud iyaga oo uga sii gudbay dhinaca magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Cabdullaahi Cabdulqaadir Xaaji injineer Carab ayaa hogaaminaya wafdigan oo ka kooban 9 xildhibaan waxaana la filayaa inay la kulmaan madaxda Galmudug ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb isla markaana ay kala hadlaan diyaarinta sharciga doorashooyinka ee Soomaaliya. ujeedada ugu weyn ee xubnahani guddiga soo diyaarinta sharciga doorashooyinka ay halkaasi u tageen ayaa waxaa ka mid ah in ay madaxda sare ee Galmudug iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ay kala hadlayaan aragtidooda ku aadan diyaarinta sharciga doorashooyinka. wafdigani guddiga ku-meel gaarka ah ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka ee baarlamaanka Soomaaliya isla markaana tagay magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli ahlu sunna ay diidmo ka muujinayso guddiga doorashooyinka ee Galmudug isla markaana ay soo magacawday dowladda federaalka ee Soomaaliya taasoo ay ku sheegeen in ay yar yihiin xubnaha ay ku leeyihiin guddigaasi. inkastoo magaalada Dhuusamareeb uu joogo wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya mudane Samriye oo halkaasi u tagay sidii uu xalin lahaa cabashada ay qabaan ahlu sunna wal jameeca. waxaana magaalada Dhuusamareeb ka socda kulamo ay yeelanayaan hoggaanka sare ee ahlu sunna wal jameeca isla markaana ay kaga tashanayaan sida ay ka yeelayaan guddiga doorashooyinka ee dhawaan ay soo magacawday dowladda federaalka ee Soomaaliya kuwaasoo ay ku sheegeen in dhammaanba dadka loo soo magacaabay ay yihiin xubno ka tirsanaa wasaaradaha dowladda federaalka ee Soomaaliya. waxaana ay sheegeen in aysan aqbali doonin guddigaasi ilaa inta laga dhigayo dhexdhexaad isla markaana lagu soo darayo xubno ka socda maamulkooda ahlu sunna. waxaa sidoo kale qaadacay qaar ka mid ah musharaxiinta Galmudug oo ku tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay doonayso inay afduub ku qabsato doorashooyinka Galmudug. dagaal geysay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa uu ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab ku dhex maray degmada Awdhiigle ee gobolka Shabeellaha Hoose. dagaalkan ayaa yimid kadib markii xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen fariisin ciidanka dowladda Soomaaliya ay ku leeyihiin degmadaasi Awdhiigle waxaana halkaasi ka dhacay dagaal socday saacado badan. dad ku sugan Awdhiigle ayaa waxay u sheegeen warbaahinta in ay maqleen dhawaaqa rasaasta ay isweydaarsanayeen labada dhinac hase yeeshee waxa ay caddayn waayeen khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi dhex maray ciidamada dowladda iyo ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab oo ka hadlay dagaalka ka dhacay degmada Awdhiigle ayaa waxay sheegeen
in weerar qorshaysan oo ay ku qaadeen saldhigga ciidamada dawladdu ay ku leeyihiin gudaha degmada Awdhigle ee gobolka Shabeellaha Hoose inay ku dileen saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda. saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya iyo maamulka degmada Awdhigle wali kama aysan hadlin dagaalka degmadaasi ka dhacay isla markaana dhexmaray ciidamada dawladda iyo ururka al-shabaab waxay sheegeen in ugu yaraan 7 askari ay ku dileen weerarkan qorshaysan ee ay ku qaadeen saldhigga ciidamada dawladdu ay ku lahaayeen degmada Awdhigle ee gobolka Shabeellaha Hoose. laakiin dad goobjoogayaal ayaa sheegaya in dib loo riixay ururka al-shabaab oo weerarka soo qaaday isla markaana ciidamada dawladdu ay si toos ah gacanta ugu sii hayeen saldhiggooda degmada Awdhigle. wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya saaxiibayaal waa naga intaas tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.